shimbirkii oomanaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. caruurey, sheeko cusub ayaan baranaynaa maanta. sheekadan waxaa lagu magacaabaa shimbirkii oomanaa. sidan ayayna ku bilaabanaysaa. maalin maalmaha ka mid ah oo aad ay qoraxda u kulushahay ayaa shimbir aad u ooman ayaa wuxuu raadinayay biyo ugu cabo. meel walba ayuu biyo ka raadiyey, laakiin nasiib daro wuu waayay biyo ugu cabo. oon ayaa la dhimanayaa, intee ayaana biyo ka heli doonaa? ayuu ku cawday. sidii uu raadinayay biyo ayaa wuxuu guri hortiisa ka helay dhalo ay biyo ku jiraan. alxamdulilaah, ugu dambayn biyo ayaan helay, ayuu ku qayliyey farxad darteed. shimbirkii ayaa aad u farxay, wuxuuna bilaabay inuu boodboodo oo xitaa uu sugi waayo inuu biyaha cabo. laakiin markii afkiisa oo dhuuban uu geliyey dhaladii, waa gaari waayey biyaha. sababta ayaa waxay ahayd in biyo yar ay ku jireen dhalada oo hoos fadhiyey. yaa ilaahi, inkastoo aan biyo helay laakiin ma cabi karo biyahan maadaama afkayga uusan gaaraynin biyaha dhalada hoos fadhiya. shimbirkii waxyar ayuu fikiray, kadibna fikrad ayaa ku soo dhacday, fikrad aad u fiican. wallaahi hadda ayaan biyo cabi doonaa oo ka dhargi doonaa. shimbirkii oomanaa ayaa wuxuu soo qaatay dhagxaan yar yar oo quruurax ah, wuxuuna bilaabay inuu halhal ugu rido dhaladii biyaha ay ku jireen. biyihii dhalada ku jira ayaa kor u soo kacay maadaama dhagxaanta ay buuxiyeen biyihii hoos fadhiyey, ilaa markii dambe shimbirkii ay ugu suurta gashay inuu cabo biyihii macaana uu ka dhargo. alxamdulilaah, oonkii waa iga baxay, biyo macaan ayaan ka dhargay, ayuu yiri shimbirkii. caruurey, sheekadana cashirka aan ka baranayn oo moraalka ku jira ayaa waxay tahay in loo baahan yahay howlkarnimo iyo caqli oo laysku darsado si mushkilad walba oo jirta loo xaliyo. dhibaato walba oo ka qabsatan aad uga bixi kartid. caqli iyo fikrad uusan camal ama ficil la socon waxba ma taraayo. sidoo kale xoog iyo ficil uusan caqli la socon waxba ma taraayo. marka waxaa loo baahan yahay caqli iyo camal laysku daray si adduunyada guul loogu gaaro. caruurey, sheekadan halkan ay noogu eg tahay. ilaa mar dambe aan ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullah.